maasha allah tabaarak allah wad aragtaan gacantayda marka aanan waxba marinin halkan waxaan ku hayaa scribe-kana waxaan ka sameeyey dib ayaa kala socon doontaan laakiin sida aan u diyaariyey iyo soo gacantayda ka dhigi doono isla socon waan soo mariyey gacantii maasha allah 3 daqiiqo ayaan ku hayay waanan ka soo dhaqay biyo caadi ayaan kaga dhaqay aad ayuu u qurux badan yahay aad ayaana u fudud yahay wuxuu ka samaysan yahay iyo wuxuu ka kooban yahay waa wax simple ah guri kasta yaala dee waxaan idin leeyahay keep going horaha loo socdo bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi halkan waxaan ku haystaa waa huruud qoyan waan dhilay waanan xoqi doonaa insha allah bidmillaahi kariim waxaan aad iyo aad u salaamaya asxaabta cusub ee ugu xidhan iyo kuwii horeba waan soo xoqay huruudeennii markii aan soo xoqayna madiibadan ayaan soo qaatay madiibadana way maran tahay halkan waxaan ku haystaa wasaliida qumbaha ama coconut oil ezilan ayay ka timaadaa saliidani asalkeeda wasaliid maasha allah tidhahaan iyo tima ahaanba kulli anaku waa ku haysanaa dee isla socod wanaagsan wixii aan saliida iyo huruudda ka samaynayana idinka indhihiinu idin macalin yihiin hore waxaa u aragteen inaan usoo geliyey carrot oil maantana kurkum oil saliidda huruudda ayaa diyaarinayaa dhowr jeer horena waan diyaarsaday anfacaad badan iyo manaafacaad badan ayay leedahay beauty secret baa la yidhaahdaa waa waxyaabaha aniga ii khaaska ah ee aan isticmaalo mararka aan ama xafladaha ama meelaha qabanayo muhiimka ii ah alaabtani inaba caadi maaha saliidii iyo huruudii ayaan isku soo guray maasha allah warle maa la wadaa saxaabta ku xidhan marwa beauty and cooking halkan waxaan soo saaray digsi biyo yar ayaa ku jira saliidda iyo huruudda dhexda ayaan isu dhigay toos dabka uma aadi doonto baadan ayaan u samayn doonaa waad aragtaan durba saliiddii cabditay isu soo bedeshay halkii ay ka taabato maasha allah gabadhii rabta inay qurux noqoto hadday si ku dhaashanayso iyo hadday wax ku darsanaysaba yaa salaam inaba caadi maaha kulli anigu waan ku haystaa haddaad ku haysatid kusoo dhawow soo tijaabi asxaabteeda waxaan leeyahay subscribe-ka iyo like-ta iyo commentiga share-tu waa xaggiina baryahan idinma jeedo idinma arko idinmeehe halkan sidoo kale waxaa igu jira kaarood weeyaan aan idinla wadaagay hadda ka hor jananka waan soo geliyay kaaroote hase ahaatee maantana waan sameeyey laakiin idinma soo gelinin wixii aan ka sameeyey laakiin kaarooga markii aan saliidii kala baxay ayaan idinla wadaagi doonaa saliidii iyo huruudiina weli waa kaasaa biyuhu hal ayay u joogaan dabku lambar 1 buu u joogaa sidaas markaad korkaaga u marisid saas u dhalaalayaa u iftiimayaa maasha allah inaba caadi ma aha adoo gurigaaga jooga isqurxi wax kastaba waxa naturalka ah ayaa ugu fiican alaabtan waa natural beauty waa alaab aad u wanaagsan hadday jir tahay iyo hadday tahay timaba inkastoo saliidda huruudda timaha la marsan laakiin takaarooga halmaan hadal kuma jiro caadi maaha alaabtani dee waxaan idin leeyahay ha laydinka arko hablaha quruxda badan lee soo dalbaday ay soo weydiiyeyna waa kana dalabaadkiinii 3 cisho kadib 2 cisho kadib halkiina ayuu idinku imaanayaa wixii kalaan ku darayaana waa secret qofkii u baahan way ila soo xidhiidhi karaa snapchat waxaan hoosta kusoo qori doonaa instagram-kayga oo idinkaasa saliiddii waan miirayaa halkaas ayaan ku miiray sidaad aragtaanba maasha allah tabaarakallah waxaan koobka cad ugu miiray inaad aragtaan saliiddu siday noqotay iyo say isu bedeshay qof walba saliid qumba uu yaqaanaa saliideeni sidaas ayay isu bedeshay huruudaas ayay isu bedeshay halkan waxaa iigu jirta waa saliid kaaro waan isku dari doonaa saliidan kaarooga iyo saliideennan aan hadda sameeyay huruuda inaba caadi ma aha waxay kaa dhigi doonaan wax maasha allah halkaas ayay iigu jirta saliida kaaroogu laakiin tan waa ta aan markasta boorsadayda aan sita aan ku rito inaba caadi ma aha waad aragtaan tii kale huruudda waan isku darsanayaa marka aan isku darsadana yaa
waa la yaabay dhaaxaa la yidhaahdaa marwa ma gabowdo laakiin marwa kuma mashquusha cid nafteeda ayay ku mashquushaa intaas ayaan idiin dardaarmayaa gabadh kastaaba intaad gabadh kale ku mashquuli lahayd ama wax dukaan yaalla waqtigu kaaga dhici lahaa gurigaaga iyo naftaada ilmahaaga ku mashquul adigu isku mashquul adigaa qurux badnaan doona quruxduna waa qalbiga taasaa muhiim ah quruxi waa qalbi qofku hadduu qalbiga ka qurux badan yahay qalbiga nadiif ka yahay jidhka iyo wejiga iyo meel kastaaba nadiif ayay u noqotaa waana u qurux badnaadaa waayo way isku xiran yihiin haddii madaxaagu buuxo dhibaata ku haysato fikir kugu furan yahay ma qurux badnaanaysid laakiin haddaad tidhaahdid wax kasta way dhaceen siday u dhaceen lama yidhaahdo sidaan u xaliyaabaa leeyahaa waad qurux badnaanaysaa haddaad tidhaahdid wax walba forget qof walaalka ayaa aanad ku mashquulinna waad qurux badnaanaysaa waa talo walaaltinimo ma aha canaan waxaan idin leeyahay gabadh kastayba adigu isku mashquul halkan waxaan ku sameeyey wakaaroogi iyo huruudi ayaan isku daray waxba kale kuma darin waan shiidayaa marka aan shiido waad arki doontaan sida ay soo baxdo waan kasoo furay halkan ayaanan ku guri doonaa kaaroogi iyo huruudi aan soo shiiday madiibadan ayaan ku ridi doonaa waad aragtaan innaba caadi maaha alaabtani waa alaab la yaabay halkaa markaan isugu geeyey halkan waxaan ku haystaa qaxwe ama bun ama kafee qof waliba sidii uu u yaqaano halkaas ayaan ku daray innaba caadi maaha innaba caadi maaha halkan waxaan ku haystaa brown sukar ama sokorta madow maasha allah guri walba waa laga helayaa taana 2 malqacdood ayaan ku darsaday sidoo kale waxaan haystaa saliidda leeda vitamin A oil waa saliid aad ugu fiican jidhka dildilaaca gala jidhka ama street market waxaad u taqaanid haddaad barisatid way kaala wuu kaa bii doonaa intani waa scribe wejiga ah gabadhii wejigeedu qalalan yahay ee daran yahay wiigii 3 jeer ayay marsan kartaa gabadhii wejigeedu qoyan yahay ee saliid leeyahayna wiigii 1 mar ayay isticmaali kartaa laakiin jidhka kale anytime ayaad isticmaali kartaa oo aad u baahato ama aad diyaar u tahay waqti u haysid waxaan idin leeyahay quruxdu waa fara ku hayn quruxu waa fara ku hayn gabadhay naftaada daryeel haddaadan isdaryeelin qofna ku daryeeli maayo muhiim maaha inaad raadsatid scribe-ka dukaanka yaalla muhiim maaha inaad raadsatid waxyaabaha la gado waxaa muhiim ah wax gurigaaga yaalla oo ku anfacaya inaad samaysato oo dhaqaale ahaanna kuu fiican caafimaad ahaanna kuu wanaagsan maasha allah marka lagu arkana lagu odhanayo toloma 25 ba mise waa 22 waxaan la hadlayaa asxaabtayda ku xiran si gaara aan luuqagooda sheekaysano marwo waxa aad weydiisan secretkuna waa kana waxaan idin leeyahay intaan fiidiyooga ku xiga ku kulmi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaana lillah subscribe like and comment share to xaqiina